السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وسلامتنا أصحابتا وكحرن برتين يوتيوب كشانل كجراشو ميديا شانل وصاحبكينا عبي أما تلياني ونيله اسكسو نقض وعن ومركل إيه برامج عصب برامج كان وحاو مقع دري وبرامج كليابك إيه أسبوعا كل وحان كسو قادن دونا ضال دمو فيديو آد وبضن وكلا قدسان run ahaantii kuwa waxaan dhihi karaa waa madadaalo kuwana waxaan dhihi karaa dadka si kale ugu farciliyeen qaabka aniga aan ugu farcilin doono arki doontiin kulli daawasho wacan marba mid ayaan ii saari doona marba mid ayaan soo qaadan doonaa halka madoo u jeedin waa laptopka barnaamijka aniga daadihin doono inagana muuqaalka waxaan soo dhigi doonaa hoosaskan mid kamid ayaa arki doontiin insha Allah daawasho wacan waxaan caawa soo qaadan doonaa dhowr video haddaan soo qabto videoga ugu horeeyo waa mid aad iga facjaciyay waayo run ahaantii aniga markaan dhalinyaranahay isboortiga waa daawanaa waa la soconaa dhinac walba kula soconaa laakiin rag iyo dumarka marka loo fiiriyo dumarka si kale ay kubadda cagta ka fahmeen waayo aniga sharad waa dhigan jirnay laakiin waxyaabo qaar sharad kumaana dhigan jirin hadda gabadhan run ahaantii waa muuqaal run ahaantii ay ka xumaan doonaan waalidkeeda hadday noqdaan walaalaheeda waayo waxay leedahay haddii ay Barcelona caawiso bixi weyso liiskeygan ku siinaa impossible macquul ma tahay waa macquul ma ahan Soomaan bal ila daawo muuqaalkan gabadhan waxay leedahay bal arka تماشى العروس يا كم بدنا برشلونة كم بدنا نسوا ده برشلونة أو نقول بدي أم تكتك غير أنا شرب نويا الجروس وراعة شرب الجروس راعي قبل وده أنا قبله أخونا تركني كتر كنا وادينا تركنا مثل تمركان كانوا تستعيش حتى عنده run ahaantii waa muuqaal yaab leh waayo gabadhan kolinkii ugu dambeeyay lugtii labaad ee Barcelona wareegga sideed ee ugu soo baxday United waayo waxay taagan tahay Barcelona hadday caawiso bixi weyso wiilka meesha oo wareysanaya ku leedahay mugtahay sharam arko gurigadan ku raaca kow dharkan waa dhigana war xishoodka aabana war dumarka waa xishoon jireen aawe sportiskiiba qalad ka fahmeen saa umalan aniga seela taani okay muuqaalkeena labaad aan soo qaban doonaa bal la socod muuqaalkeena labaad waa muuqaal aad ii soo jiitay dareen ahaan waayo waa wiil u xiisay hooyadiisa laakiin Soomaalida waxay ka dhigeen si kale ka dhigeen muuqaalkan waa Sheekh Cabdul Hayy oo hooyadiisa habsiinaya run ahaantii hooyo haddaad yar tahay 5 jir aad tahay 10 jir aad tahay 20 jir aad tahay 30 aad tahay hatta haddaad 100 jirto hooyo agteeda mar waxa ka tahay ciyaal nolosha la'aanteeda hooyo waxba maysan suurtagal leheenin run ahaantii waa muuqaal aad aniga ii soo jiitay xaggeeda laakiin markii muuqaalkan sheekhu ka hadlay wuxuu sheegay maamadaas inay tahay hooyadiisa laakiin Soomaalida ay ka dhigeen qof adiga romantic sameena amal oo xaskiisa la sameena run ahaantii waa qalad waxaadan ogeyn inaan wax kale ka dhigto run ahaantii qofka saan loogu xiisayo hab loo siinaayo waa hooyo mar walba waa hooyo bal ila daawo muuqaalkan واو هاي مرة أنتظر عيالك هاي الأنتظر نولشان ميسة صورة قلين رون أنتي مقالك صومالة سكر يغفر علينا لكن شيء يا شيء إني معمدا سويدي سعيد رون أنتي سوى بعض وين تهاي سوى بعض قنجار وتهاي هاي الأنتظر وحمد صورة قلين أنت على الأنتهاي هاي قصود جريش زمان إن شاء الله وحن ليه دتك والدك ودنول لهين هلقى فائدة هلقى دعوة والدك ما شاء الله وحاواي لما والدين الصومالي وحاول بشارين إني جنة الله وصيه إن شاء الله وحن ليه هاي قفل والد كيس نول ليه هاي كدعوة والد كيس أوكي مقال كان سدحال عن سوق هذا بل رناهانتي مقال كان أنيجا شخصيا دريناهان أد حمادي وايو وقبل يرير وقبل يرير يا waxay sameynayaan hadad aragto billaah عليك wallahi inaad daawan karantaa wallahi run ahaantii gabdhihii Soomaaliyeed sharafta lahaay laga bixin jiray geeligi intaas la ekay 15 halaad laga bixin jiray maanta warkooda daa run ahaantii dhulka ay isdhigeen waayo muuqaalkan gabdhahan waa gabdho adeega in meel la keenay oo la siinaa shiishad kaaga daran waxa ku soo jiro diyuska asna kaas waa diyus aan dhigi karaa diyus
waayo maanta nin ay gabar dhalatay ama dhalay ama u dhaxdo waxaan ma samayn karo kan muuqaalka sii duubaan waa min idab daran asna run ahaantii gabdhihii sharaftooda ayagaa daayacay ayagaa ku dhiilay run ahaantii waalidiinta Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay gabdhihiina ka warqabo gabadha hala saaro lugta ha loo saaro meeshii aadayso meeshii ka imaanayso ha loola warqabo bal ila daawo muuqaalkan saddexaad subxaanallah ahaantii waa wax lagu xumaado dhalinyaradii insaan loo fasahaadiyey waliba dad biyuusiin ah run ahaantii waa muuqaal aad iyo aad u yaab badan warmeeyey dadkii dhala aawe war aawe xitaa wiilasha la dhashid aawanaa run ahaantii waxaan dhihi lahaa waalidiinta Soomaaliyeed gabdhaha hala kontarool xoog hala saaro wali waayo gabadha sharafteeda iyo ciidadeeda iniga mas'uuliyad in xageena saaran tahay insha Allah wax walba ha loo socdo gabdhaha hala kontaroolo run ahaantii muuqaalkan waa muuqaal dhiirigelin ah qaasatan waxaan hadlayaa dadka ku nool Puntland iyo Galmudug run ahaantii gabar way ku dhalatay way ku dhashay waa dhali doontaa wayna ku dhixi doontaa run ahaantii dumarka dhibka laga dhaafo run ahaantii dumarka tacadiga loo kacay meel walba ay joogaan laga dhaafo qaasatan kufsiga run ahaantii maanta ina gabar walaashaada sharafteeda aad ku dhasho ilma fiicna maanta nin ogol ma jiro walaashiis in la kufsado nin ogol ma jiro hawritiis in loo xad gudba nin ogol ma jiro familkiisa qaraabadiisa in dib loo geysto run ahaantii isku day inaad doorto dadka kale maanta gabadhaas aad kufsanaysa walaalaha dhashtay waalida dhalay run ahaantii muuqaalkan dareenkeyga aad iyo aad ayuu u bedelay bal ila daawo muuqaalkan xaqiiqatan damiir ahaan waxaan isku qiyaasi kara ma jiro waxaan ka hadli kara ma jiro waxaan oran karana ma jiro waxaan oran lahaa dib baan u laqa wixii aan saako dhan go'anayeen oohin bay ahayd waxaan dhaho hadda aan halkan ku oran kara ma jiraan waxaan ooyi karaa waa inta waxaan ooyi karnaa waa inta wax noo qaban kara waa inta ragga tira leegadaysi waxba noo qaban karaa waxaan waxba ka baranayna ma jiro inta yadaa yulufoonka inaan dhigno guryaha fariisanaan leen biyaaladii ma raaci karno meelahaadna ma jirto waxaan samayna ma jirto xaqiiqatan dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay cadaalad ma haysano kitaabka ilaahayna laguma dhaqmo annaga ilaahay xuquuqdiisa nagu filan kitaabka ilaahay baa noogu filan asiga kaliya noogu dhaqmo dawlad ma haysano odayaal ma haysano rag naga dhiidhiya ma haysano haddaa ka xumaan lahaydeen haddiina ka xumaateen minaanu ma kala jecel ina guursan mayo ina ma raba ina mana shukaansanayo waxaa dhacday hameen ma soo bixi karno maalin ma soo bixi karno waqtiyadii aan intaan iskuulka maanta oo kala qaadanay galabta soo noqon lahayd dib marqabkii guriga markii la gaaro kama soo bixi karno cadaalad darradaasaan haysanaa haddaan dumarka soo antii waxaan dhihi lahay ha laga dhigdhigo dumarka Soomaaliyeed sharaftooda hala aalay mar walba run ahaantii maanta in gabar walaasha dib u geysato ma fiicno run ahaantii xadgudubka la joojiyo waxaan hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed muuqaalkan waa muuqaalka ugu dambeeyo aan barnaamijka ku soo xiri doono run ahaantii muuqaalkan aad iyo aad ugu xumaaday waayo hawl dumar loogu talagalay markaad la gasho gacanta dhibkeeda leedahay war maanta shaashar iyo naash iyo in aroos adayga waxyaabahaas dumarka anigu ugu goyna run ahaantii ragga qaar magaca ragnimadu ama waa iska bataan wallahi waayo waxyaabahan qaar damirku siinaa jirixtaa ya war maanta hawl dumar loogu talagalay نعلة الله عليه وركوان والله مجعي رجنمدين نقول لين والله يا ومقال أدي أنا وجوح مع الدرين هان أنا حقيقة واي هوشاس هول ضمر لو ترجل واي وحياوها سي الله إني رجع قار وحاواي قعنا أتهاج والله وبالله بل إلى داو مقال كان بل وحيس
run ahaantii waa muuqaal aad iyo aad u yaab badan waaye ya waxaa waaye waxyaabo qaar waxaan ku tilmaamaan ka siiyan wallahi billahi markaan arka mar qaar anaga dhiigaaga u kacay run ahaantii halka nagala socoteen waa Garasho Media Channel saad u hesho muuqaal aad iyo aad u badan oo muuqaaladan kasii qurux badan kasii mutaajilo badan fadlan subscribe saar channelkan share muuqaalkan like comment intaba nagala wada dhiirigelintaada waa noo muhiim sidaas iyo nabadgelyo saan isku arkeen isbuuc xiga ama barnaamijkeen xigo bye bye